السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا داوديال برنامج gaara oo aan rabno maanta inaan ku kafar gareyno musharax kamida musharaxiinta Soomaaliyeed ee u taagan xilka madaxweynenimo ee dawladda Soomaaliyeed. musharaxan oo magaciisa la yiraahdo Xuseen Khaliif Xaaji Jaamac oo ah sarkaal sare oo ka tirsan bangiga horumarinta Islaamka ayay noo suurta gashay inaan wareysi gaara la yeelano. mudane marka hore kusoo dhawow Somali Channel. waxaan jeclaan lahaa bal inaad taariikhdaada iyo aqoontaada inaad bal ummadda uga sheekayso. mahadsanid cabdikariin waan idinku mahadinayaa shaqaalaha Somali Channel iyo maamulka Somali Channel ba fursadan caawa ay siiyeen aan kaga warramayo musharaxnimadayda iyo arrimo la xiriira. sidoo kale waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London ee caawa martida ku ahay. runtii waxaan ka xumayo ka ictidaarinaya inay ii suurtagelin inaan meel ballaaran ama shir weyne ama ballaaran xaflad iyo wax lamid ah ayna ii suurtagelin inaan London ka sameeyo sababtoo ah waqtiga xogaa cidhiidhi ugu ahaa. taas waa ka ictidaarinaya taantu marka la soo dhaafo su'aasha ay weydiisay aniga backgroundkayga. Soomaalida waxay ku maamaadaan nin isfaanshay waa riis nuugtay. marka aad ma rabo inaan ugu tigtigto laakiin waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa in aan nin ahay dhexdhexaada aan weynayn aan yarayna aqoon ku filan leh iyo khibrad dhinac kasta leh adduunyo badan ku soo noolaaday Soomaaliya ku soo koray shaqooyin ka soo qabtay tababaro caadi ah iyo madani iyo kuwa ciidanba ku soo qaatay Soomaaliya adduunyada kale sidoo kale meelo kala soo maray waxbarasho kala gedisan oo noocyo badan soo qaatay 20 sano u dambeysay. waxaan ka shaqeynayay dhinaca bunuugta heer caalami ah dalkana waa ka warhayay intii ugu dambeysay waxaan ka shaqeynayay meel aan Soomaaliya aad uga fogeyno toos diyaarado uga duulaan oo la yiraahdo Saudi Arabia. dalkana waa imanayay nin marka la socdo xaaladda dalka ayaan ahaa ka warqaba sida wax u dhacayaan saas weeye background-igu guud ahaan. mudane waxaad si guud noogu sharaxdaa qorshahaaga siyaasadeed. walaal qorshahayga siyaasadeed aniga waa kooban yahay. waxaan aragnaa ama aan akhrinaa dad badan oo siyaasiyiin oo Soomaali arrimaha ka hadlaya oo tartan galaya wax badan ballan qaadaya wabiyo badan jeexaya arday badan inay wax barayaan sheegayo jaamacada wax ka saaraya. aniga waan qabaa in waxaas oo dhan wax loo baahan yahay ay yihiin dalkuna uu dal dusan yahay oo meel kastoo la eegaba baahi baa taala wax qabad laakiin wax badan lama qaban karo maanta maxaa yeelay waxa dunsan saldhigii asaasiga ah qaranka baa dunsan. marka aniga programka rabo inaan ku socdo hadda oo aan rabo inaan ku wajahanahay oo waji aan saaro macnaha liishaanka waa qodobo dhowr ah oo meelo badan ka soo sheegay dalal badan hadda aan soo maray iyo dalka gudihiisaba dhawaan aan tagay xamar baan dhawaan tagay oo dad badan ma arrimahaas kala hadlay. North America hadda ka soo noqday horey waxaan soo maray Kenya iyo meelo kale. marka qodobadaas waa qodobo kooban. waxaan arkaa mushkiladda Soomaaliya haysato in la xalliyo marka hore u horeysa ay tahay in hoggaanka dalka la saxo hoggaan fiican dalka la helo oo level kasta leh maaha meesha ugu sarreysa iyo kuwa dhexe in hoggaaminta dalku ay tahay mushkiladda dalku oo ka dhaqaaqi lahayd. dad badan baa sabab badan ku kala fasira sabab Soomaaliya 20 iyo dhowr sano ay u kala taalo oo ay u noqotay ruqo kici weyday. ruqadu meesha ka kici weyday ana waxaan qabaa inay tahay hoggaan xumo. dalkan iyo hoggaan xumo u burburay wuxuu la kici lahayd hoggaan xumo ilaa si dhab ah dad mas'uuliyad qaadi kara qaranka ay qabtaan hawshiisana sida un baynu isaga daba kameeraysanayna waxa inoo dhaqana haddaan Soomaalidana inaan dad kale eedayno oo dhahno ciidan ba halka naga soo galay iyo qola noo diidan iyo qola inaan qaybinaysayo anigu fikirkaygu ka maaha waxa weeye inaan mas'uuliyad qaadno weeye inaga is xukumi weynay inaga dalka hoggaan weynay. marka qodobka koowaad waxa weeye aan ku celcelinaya in dalkan u baahan yahay hoggaan istaahila dalka inay maamulaan oo mas'uuliyad qaadi kara oo la xisaabtami karo oo gol in la xisaabtamo sharciga ilaaliya. qodobka labaad waxa weeye waa nabadgelyadu waa waxa ugu daran ama oo dalku hadda la dhaqaaqi yahay beerihii la filan la yahay maxaan ku raahdaa shaqaalihii dawladda shaqeyn lahaa ay uga cararayaan inay dawladda u shaqeeyaan maxaa leeyahay nabadgelyada xumo dhab ah baa dalka ka jirta ay keentay had ilaa dawladda shisheeye hadda nabadgelyada mas'uul ka yihiin. marka saad si looga maarmo dawladda shisheeye hadda
arrimahan inoo maareynaya waxa loo baahan yahay in la sameeyo ciidanka qaran marka muxuu u samaysan waayay su'aashu jawaabteedu waxa weeye waan xil badan la iska saarin in ciidan tayo leh saraakiil leh saraakiil xigeen leh dable leh la helo oo moralkooda uu fiican yahay oo waxay u baahan yihiin helaya oo ma garatay waxyaalaha xasaasiga ah oo ma garatay ciidamada burburiya laga ilaaliyo maxaa la yiraahdaa sida qabyaaladda iyo garadaha beenta la bixinayo waxba ha ahayn maxaa la yiraahdaa iyo lacagtii ciidanka oo ay waayeen mushaarka ay waayeen problemyada noocaas oo badan buu ciidanku qabaa anu problemyadaas xagga nabadgelyada waxaan qabaa ciidanka qaranka in la sameeyo ciidan lagu kalsoonaan karo oo tayo leh oo dad istaahila ay madax ka yihiin oo nidaamka adduunka lagu arki jiray ciidamada baan qabaa in la sameeyo aad baan anigu u fahmayaa anigoo qabay khibrad xagga ciidamada ah in arintaas arrin wax weyn ka qaban kara inay tahay lambarka saddexaad waxa weeye oo aniga programkaygu uu ku wajahan yahay waa la dagaalanka musuqmaasuqa dalku wuxuu la dhaqaaqlayahay musuqmaasuq ku baahay oo meel kasta meesha dalka ugu sarreysa ilaa meesha ugu hooseysa nin walba wuxuu hayo uu jaantaar uganta cidna xisaabtamayn xisaab wax ku shaqeeya jirin aan cidna loo qabsanayn waxay dhaceen iyo waxay kharibeen marka musuqmaasuqu waxa weeye mushkilad weyn oo runtii in la address gareeyo ama lagu dagaalamo oo campaign-kana qayb ka qaadan doonta inaan dalka inta lacagtiisa la iska qaato waliba aan lagu faani karin baanu leenahay waanu ka hadlaynaa waanu sheegaynaa in dalkan u baahan yahay dad la aamini karo oo wixii adduunku ugu dhiibo iyo waxa iyagu leeyihiinba lagala xisaabtami karayo adduunka hadda meel ka soo tagtid waxaa caan baxday Soomaaliya ayaa adduunka ugu musuqmaasuq badan lambarka ugu hooseeya ayaan nahay waxa la yiraahdaa afka ajnabiga lagu yiraahdo corruption index waa cabirka corruptionka adduunka ama musuqmaasuqa adduunka Soomaaliya ugu hooseysa taas ma aha wax accidental ama iska dhacday ma aha shirki ka dhacay Turkiga baan ognahay wixii laga soo saaray kuwa kale hadda la hadal hayaa jirta oo ay dhici karta in la soo saaro musuqmaasuqu waa mushkilad weyn oo aan la rabin in la taabto laga baqayo dad ba xataa ay wali tiri aniga ka hadlin waan ka hadlayaa waan sheegayaa qadiyad muhiim oo jirta waxa weeye ninkii wuxuu hayay la waayo waan asaga la waaya anigu maamulka dalka hadaan qabto waan la dirirayaa musuqmaasuqa qofkii musuqmaasuq loo helo wasiir ha ahaado wasiir xigeen ha ahaado khasnaji ha ahaado ninkii inta lacag loo dhiibto lacagtii sheeg waaya meesha martay waxa weeye waa in la waaya hadba awood la weydaaso ama shaqada in laga ciriyaa dhici karaysa amba hadii awood loo yeesho inuu xabsi ku galo ba anigu waan qabaa laakiin taas waa meesha ugu sarreysa in ay ilaaliso sharciga ayaguna sharcigaas isku aqbalay karaysa waa inaan anigu aan hunguriyeyn inaan lacag qaran ama isticmaala ama aan xada ama aan ku taklifalo marka waan hoos u khasbi karaa in ay fuliyaan dadka iga hooseeya qodobka afraad oo runtii jira muhiimka ah waa in la helo sharci ilaalin iyo cadaalad qaran aan cadaalad lahayn oo aan ma garatay cadaaladda aan la ilaalinayn oo sharciyada dalka dastuurka ugu sareeya dastuurka sidii yahay loo raacayo dadka shuruucda kale oo ka hooseeyana iyadana la raacayo qaran aan intaas aan lahayn ma shaqeynayo adduunku cadaalad iyo sharci ku shaqeeya lama taabtaan weeye cadaaladdu marka aniga maamulkayga in cadaaladda iyo maxaan ku rahdaa iyo qof walba inuu helo waxa xaq u leeyahay waxa weeye waa tiir weyn weeye aan xawo ku saarayo iyo fulinta sharcigana madaxweynuhu waa ilaaliyaha dastuurka waa inaan dastuurka ilaaliya waxa ka hooseeyana aan dalba in ayaguna shuruucda kale ilaaliyaan qodobka shanaad oo Soomaalidu ay sahlato waxa weeye oo hadda iska caadi isaga qaadatay waa qabyaalad baan wax la dhaqaaqlaanahay adduunku ma garatay leena ku kala qaybiyay qolo oo ma garatay inagu aan isu kala qaybinay aan dhihna adduunka inaga is qaybinay caadi isaga dhiganay oo qolo qabyaaladi meel ina gaarsiin mayso waa kansar baan ma qaba kansarna ila qaratid ina jirinta daawad qabtid ina jirinta ina qaratid mooyee dawadiisi ma bilaabi karaysid marka waxaan qabaa inaan qarano in problemka ina haysa ugu daran hadda aan la dhaqaaqlaanahay inuu yahay cudur la yiraahdo qabyaalad aniga waxaan qabaa dad badan baa wax ku doodaan qabyaalad wax laga qaban karo waa in marka hore la qirtaa la isku dayaa in la yareeyo maamulkana laga suuliyaa ama laga titiraa maamulka dawliga ah inuu qabyaalad ku shaqeeyo waxyaalo kale xirfad aqoon merit waxyaabo badan ba adduunka laakiin adduunka meel qabiil labada qof la qoraya qabiil ha kala turto ay ka jirto aan Soomaaliya ma jirto sababtaas baan la dhaqaaqlanay aniga marka aan soo koobeesh iyo hadal gaadheeyay shanta qodob bay wax walba hoos imanayaan oo baahida Soomaalida hadii la yiraahdo dumar laga hadlo hadii la yiraahdo beer laga hadlo dhalinyarada laga hadlo mashaakilkeeda dadka maxaan ku raahdaa caafimaadka laga hadlo education waxbarashada kulli mushkilad kasta oo ijtimaaci dalka jirta haddaan intaas aan
tilaabo laga qaadan oo aan la xalin wax kale lama gaari karayo. waxaa jiray madax hore oo badan oo usoo tartamay xilkan madaxweynenimo ee aad doonayso, waxaa jiray madax badan oo kasoo shaqeeyey xilkan madaxweynenimo oo xalal badan ku dayay arrimaha Soomaaliya aadka u cakiran. maxaad uga gedisan tahay musharaxiinta kale? anigu waxaan isleeyahay waa run nin aniga yiri rag iska reeba Soomaalida ku maamahda. anigu waxaan qabaa hogaankii rag hadda tartamaya waxa kama sheegi karo wali hawlahooda iyo barnaamijkooda si fiican ma aqaan, laakiin wax badan baa la ballan qaaday, laakiin waxa iskeeni waayay ballanqaadkii iyo fulintii. anigu waxaan isleeyahay waxa aad ballan qaaday sidoo fulin kartaa hadda tiraahdeed maxaa la yiraahdaa hadii la yiraahdo dad tayala la doonayo dalka u baahan yahay, waxaan qabaa in dad tayala la keeno oo dalka tayal lagu shaqeeyo oo maxaa la yiraahdaa hoggaan tayale taya afka ama waa taya awood leh, awoodina in la siiyo way qofkii laguna xisaabtamo. marka anigu waxaan qabaa madax hore oo dalka hore u soo shaqeysay wax isku dayday way jirtaa, laakiin in waxaad u malaysaa ay iskeeni waayeen waxyaalaha ballan qaadayeen iyo waxay sameynayeen. aniga waxa iga daacada oo ma garatay calooshida ku jirta wax afka kale wax urkii ku jira, waxaan aaminsanahay inay islahaan doonaan. dad badan baa yaqaana dhowr jeer baan meelo kale uga kaftamay nin wadaada oo la yiraahdo Biyamaalow, Sheikh Biyamaalow ina haddana khaldin taatalkiisa waxa baa la yiri awliya tahay Biyamaalow ka waran. wuxuu yiri wallahi dadkuna waa hadalla dadka kama maqlayay waa ma maqlayay anna waa isbidaya xoogaa. marka aniga dad badan baa yaqaana oo la noolaa meel badan baan ka soo shaqeeyay in waxa aan leeyahay aan isku dayo inaan fuliyo waxaan u malanayaa inay tahay sheekadaas Xaaji Biyamaalow oo kale. marka waxaan rajaynayaa inaan ka soo dhalaalo wax midda aan labaad aan leeyahay ma arag aniga adduunka soo u shaqeeyay iyo dhaqaalayahan baan ahay. dhaqaalaha adduunka ayaa muddo 20 sano ka soo shaqeynayay oo adduunka oo dhan meel aan tagay meel badan baa adduunka ka tagay oo shirarka ka qayb galayo khibrad dheer baan u leeyahay. waxa taa ii weheliyay nabadgelyada dalkana inaan si gaar ah uga qaban karo ayaan garan karaa. problemka ciidanka waxa aan qaban karaa inaan si rasmi ah aan u fahmi karo waan isleeyahay hadaan noqoto taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliyeed waa madaxweynaha waad garan kartaa waad kugu diirsanayaan saraakiisha xigeenka iyo dabliga ciidanka maxaan ku raahdaa qalabka sida ee Soomaaliya. doorashooyinkii hore uga dhici jiray dalka kama aad qayb galin, maxaad ku dooratay hadda inaad xilkan isku taagto? waa su'aal munaasib Cabdikariim oo istaashay in la isweydiiyo. wadciga Soomaaliya hadda inuu kala guur yahay baan aaminsanahay inuu crossroad waxaan afka Ingiriisiga lagu yiraahdo laba wado isgoyso maraya. waxaan qabaa maanta qofkii wax isbidaya Soomaaliya waxa uu isbidayo inuu keeno oo soo bandhiga loo baahan yahay. dad badan baa tartamaya leeyahay laga qeelinaya. anigu waxaan qabaa nin walba ha yimaado waxa uu yahay keeno. fursad baa jirta maanta waagi hore in la tartamo waxyaalaha hor istaagi jiray baa jira oo dalka la kooyo la tigsan u dambeysay ma jirin meel laga tartami karo oo banaan oo cid walba oo banaan ma jirin. mar warlords baa haystay, mar dagaal baa ka socday, mar magarad hadda waxaad moodaa in dalku uu soo furmayo oo dadka maskaxdii ku soo noqotay oo aqliga ku soo noqday oo maxaa ku raahday dabcan waxa taas keenay ciidamo shisheeye oo tiro badan oo dalka jooga baa nabadgelyada ilaa xad sugay gaar ahaan magaalada caasimadda Xamar oo dhawaan ka yimid oo runtii aan ku soo arkay wax aad lagu farxo isbedel aan caadi ahayn ka dhacay. dadka maaha in dhismiyaashii iyo wixii guriyihii la dhisanayo dhulkii la xaaqayo wadooyinka nala lagu xirayo waxa way fikirkii dadka oo isbedelay oo Soomaalinimo iyo wadaninimo iyo maxaan ku raahdaa israbitaan Soomaali israbto iyo ay qadiyada ka hadlayaan leeyihiin maxaa lagu doortaa adiga maxaad noo sameynaysaa haddaan ku doorano. waxaas oo dhan isbedel dalka hadda ka jira weeye. waxaan qabaa marka Soomaaliya isbedel ka dhacay, isbedelkaas baan doonayaa inaan la jaan qaado. maxay muhiim kuugu tahay inaad xilka madaxweynenimo isku taagto adigoo heli kara inaad xirfadaada adoo adeegsanaya howlo kale wadanka u qabato oo hoos ka soo bilowdo? waa meeshii ugu baataabatay farta iyo waxa la iyo maxaa la oran jiray boogto meesha boogta isla hadalkaas waa maleynaya in la weydiinayo ma hayna madaxweyne jeclahay ama shaqadu madaxweynimada aan aad si gaar ah u danaynayo. anigu waxaan qabaa dalka hay'adaha ugu sareeya haddaan wax weyn isbedel ka dhicin hoos wax iska bedel kama dhacayo. haddii wax ka khariban yihiin meesha dalka ugu sareysa ama aan lagu kalsoonaan karin amba aan lagu falfalacsanayn dad meesha u sareysa dalka xukunka meesha dalka u sareysa haddaan lagu falfalacsanayn waxa ka hooseeyay ma noqonayaan wax shaqeeya dalka. aniga marba waxa la igu yeeray la iisoo
oo laga codsado lagu yeeray in la consider gareeyo ama la isku dayay in laga dhigo prime minister sanad iyo bar 2 sano ka hor runtii ma ayna dhicin laakiin marka laga bilaabo waxa ay galay fikir meesha ugu sareysa dalka kaliya wax laga bedeli karaa ama madaxweynaha ama prime ministerka ama labaduba si fiican u shaqeynayaan ba dawladdu shaqeyn kartaa hadii meel laakiin leak ka jiro ama wax ka daadanayaan meel waxa weeye xukun wanaagii iyo maxaan ku raahdaa iyo sharafti qarannimadu waxay noqonaysaa mid dhutisa aanu marka waxaan isleeyahay meesha shaqo inaan ka bilaabo madaxweyne ima ah hadda muddo ma soo shaqeynayay hadda wali waa shaqeeyaa meel baan ka shaqeeyaa ninkasoon si kumeel gaar uga soo tagay waxa weeyaan shaqo doon iga ma aha madaxweynaha inaan shaqo ka bilaabo ma rabo waxaan isleeyahay madaxweynenimadu waa meesha qimada ugu sareysa dalka oo haday hagaagto waxa ka hooseeyana la hagaajin karo weey maadaama ay jiraan musharaxiin badan oo Soomaaliyeed oo xilkan u taagan oo nasiib wanaag intooda badan ay yihiin dad mutacalimiin ah oo aad isku heertihiin oo fahmaysaan wax xiriir ama la sameysay mase isku daydeen inaad tanasulaad isku sameysaan oo aad mid idin kamida ama laba idin kamida soo xulataan walaal waxa weeye dhawaan waxaan joogay xamar toddobaad ka hor hadeen toddobaad ka yareenba waxaan ku kulannay ilaa 7 musharax oo dad aad ixtiraamaya oo Soomaaliya kulli wada doonaya inay u tartamaan jagada koowaad ee inay madaxweynaha dalka ka noqdaan dabcan qaarana is arag ay qaran wali ku dhawaaqin waa joogeen xamar laakiin ragaas waxay ahaayeen ragan wada doodnay aanu wada makaratay isfahamnay in anagoo tartamay dabcan dad tartamayanahay aanu si fiican systemka dalka u shaqeynayo ama doorashada u dhacayso ama waxaan road map kaliya si ku shaqeeyaan baanu iska wareysanay horumar fiican baanu sameynay baaq baanu soo jeedinay Soomaalida iyo beesha caalamka u soo jeedinay in si transparent iyo qarsoodi ku jirin oo aan dan shakhsi ku jirin loo maamulo doorashada iyo qaabka odayaasha loo xulayo iyo baarlamaanka loo xulayo baanu ka wada sheekaysanay arintaas baaq baan ka soo saarnay meel baanu wada istaagnay rag kale oo soo gali doona nagu soo biiri doonana waa rajeynaynaa inaan sidoo kale ay nagu soo biiraan marka tanasulaad wali lama gaarin oo qori xirag kuma heshiisa la yiri kulliye waxaan wada doonaynaa isku wax taas wali ma aanan gaarin laakiin ma aha wax macnaha impossible ama waxaan la sameyn karin maaha way dhici kartaa mustaqbalka inay timaado laakiin waxaan filayaa kulanka yagaas u dhacay hadda muddo asbuuc laga joogaa inuu ahaa bilow cusub oo aan horumar ka sii gaarno in sidii mashaakilka dalka loo xalin lahaa mustaqbalka dabcan waan aaminsanahay dad bisil inaan wadanahay oo hadii qofkii ku guuleysta ama in la shaqeeyo ama loo tahniideeyo oo dad sida dalalka Afrikaanka ku yar inaan imanaysan u malanaya fikirka meesha yaaliye sida aan isula jaan qaadinay waxaa jira arrin wariyaal fara badan oo Soomaaliyeed ay hadal hayaan oo ah in doodii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee musharaxiin Soomaaliyeed isaga hor yimaadaan la qabto haddii ay dhacdo in arrintaasi suurto gasho diyaar ma u tahay inaad ka qayb qaadato dooda siyaasadeed ama garanka siyaasadeed aad iyo aad Cabdikariim waa mahadsan tahay hadalkaas hadal xiiso badan la weeyay waan soo dhaweynayaa in la debate gareeyo dadka tartamaya ay debate gareeyaan qadiyada laga hadlo la soo horfariisto la doodo mashaakilka dalka yaala laga hadlo sababta keenay laga hadlo nin walba wuxuu keenay iyo wuxuu sameeyay miiska la soo dhigo arintaas waa arin aad u fiican aad qurux badan in Soomaaliya ka dhacdo horeyna inay uga dhicin adduunka meelba mar waqti bilaabatay America debate ugu horeeyay kii Kennedy buu ahaa lixdamaadkii bilowgii lixdamaadka buu ka dhacay marka 2012 haddaan inagoo Soomaaliya aanu debate gareyno television hortiisa sudmaan waxaan u malanayaa inaanan aad u daahin maxay adduunka dhan buu ku cusub yahay waqti dheer dalkan Ingiriiskana 2011 baa kii ugu horeeyay laga qabtay marka haddaan Soomaaliya aad dhinaca uma dahsanin waa soo dhaweynayaa waan rabaa in raggan qaar la is horfariisto oo qadiyada laga hadlo oo nin walba la eego ma garatay waxa uu maskaxdiisu tahay iyo waxa uu rekorkiisu yahay iyo waxa uu doonayo dalka inuu ka sameeyo iyo wuxuu hore u sameeyay labadaba wax wala miiska in la soo saaro taas waan soo dhaweynayaa waxaan rajaynayaa asaas in la isku wada raaco maxaad dadka Soomaaliyeed ee ku daawanaya ee ku nool dalkan Ingiriiska iyo dunida dacaladeeda iyo waliba Soomaaliya aad u sheegi lahayd adigoo ka faa'iideysanaya fursadan walaal waxa weeye dadka Ingiriiska ku nool oo magaalada London caawa naga daawanaya iyo Soomaali guud ahaan inta naga daawanayso shaashadaha telefishinada waxaan salaamayaa waxaana u sheegayaa in leeyahay enough is enough baan Ingiriiska ku tiraahdan halkan baan u leeyahay reer England
waxa waa soo daba dheeraada inay wax meel inta ka istaagaan ka dhaqaaqaan weeye Soomaaliya waa inay dhaqaaqdaa oo fadhiidkan ay ku raagtay ay ka dhaqaaqdaa waxaana waxa loo baahan yahay in dad ay u sameeyaan maxaa la yiraahdaa inay naftooda u furaan waxaan sacrifice kale hada in loo sameeyo loo baahan yahay ma jirto dal waa laga samrayo waxba laga ma qaban karo maamaha dhawaana bartay baa jirto aan oranaysa mood mooye rag wax kasto kala maaree yani qofku hadii mood ku soo socdo ama uu dhimo rabo taa iska ma celin karo laakiin rag macnaha rag dumar waa noqonaysa halkan balwada loo dan leeyahay laakiin wixii kale mushkilada kale ku yimaado marka impossible maaha waxaan dhici karin maaha inaan Soomaaliya mushkiladeeda la xalin karin laakiin waxa loo baahan yahay in la yimaado niyadii iyo aqligii iyo juhdigii waxaan lagu xalin lahaa oo daacadnimo ah ee aan danaysan ahayn aan u doonayna u tago Soomaaliya oo ka soo tago shaqadeedii iyo reerkayga iyo wixii aan ku haysay meeshan joogay inaan laqdabo iyo inaan wax khiyaano ama waxa runtii way ma qabo aanu iguma jirto dad badan baan la helayaa saa u fikraya in la iska hashado aqliga inta isaga dhow ama sida fiican u fikraysa haday iska hashato dalka meesha waa laga saari karaa marka qadiyada u horeyso Soomaaliya ku guwaabinaya waxa weeye hadda hortaala dalkeena wuxuu ka dhaqaaqi waayay baarlamaan la'aan baarlamaanku waa hay'adda ugu muhiimsan ee dal ama dumisa ama dhista haddii baarlamaan fiican la helo waxa la helayaa hoggaan fiican oo qaranka maxaa la yiraahdaa qabta baarlamaanku hadduu fiican yahay hoggaanku hadduu khaldamo baarlamaanka saxa haddii laakiin baarlamaankii yahay mid dhutinaya oo asaga kuraas la dhacayo oo asaga isku mashquulsan waxa weeye hoggaankiina wuxuu noqonayaa awr dabar la'aan dhacay meesha Soomaaliya la yiraahdo awr dabar la'aan dhacay waa sida hadda xaalkeenu nahay weeye marka anigu Soomaaliya waxaan ku guwaabinayaa ama London caawa ha joogeen amba daafaha kale oo dawladda ha joogeen ama dalka gudihiisa ha joogeen gaar ahaan kuwa dalka gudihiisa jooga in maanta aan la khaldin baarlamaan inaan loo xulin qof liita qof lacag qaadanaya qof balwad laho ma garatay dependent ku ah inuu san dabcan qofka balwad leh inuu lacag qaataa way u badan tahay qof liita inaan baarlamaan reer walba loo qaybsanayo nisb darro waxaan taala in kale maanta jirta way laakiin inay soo xushaan qof istaahila oo magaca gobolka ama degmada ama reer badhehe qof loo soo istaagayo dalka dantiisa ka fikray wax kariga danta qaranka ka fikri kara ha lagu dadaalo oo waliba dadka soo xulaya ha lagu cadaadiyo oo simada iyo duubabka iyo dadka hadda wax xulaya aniga waxaan qabaa in lagu xisaabtamo laguna cadaadiyo inayna qof soo xulin liita oo dalka dantiisa hadhow aan ka soo bixi karin marka anu qodobkaas baan aad hoosta uga xiriiraya caawa Soomaalida kula taranaya daawadayaal waxaa intaa noogu eg waraysigii gaarka ah aanu la yeelanay Xuseen Khaliif Xaaji Jaamac oo ah musharax Soomaaliyeed oo u taagan xilka madaxweynenimo ahna sargaal sare oo ka tirsan bangiga horumarinta islaamka intaanu barnaamijkan oo kale ku kulmayno salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh adiga mudan cabdi Allah yasalamu